بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له ولا السلام سلام كتب وحاليا هاي سوفيو iyo sheekh baa riyooday tolooy oo kala garnaqay doona video baan fiirsaday videogaasi wuxuu ahaa nin wadaada wuxuu yiri nin kristaan ah baa dhintay ninkii qabriga la geeyay qabriga markii la geeyay markiiba waxa uu yimid malaa'igtii imtixaanka marinisay markaasi waxay weydiiyeen rabbiga waa kee wuxuu ku jawaabay ma garanayo waxaa lagu yiri nabiga lagu soo diray oo adaamsanta waa kee wuxuu yiri ma garanayo waxaa lagu yiri diinta aad haysatay waa tee wuxuu ku jawaabay ma garanayo inta markuu ku jawaabay baa waxaa lagu yiri yaa taqaanaa markaasuu yiri waxaan aqaanaa Sheekh Cabdulqaadir Jilaani baan aqaanaa waxa dhacday markaas malaa'igtii waxay yiraahdeen anagu naartan ku geynanaa because shaqadeena asaas ah qofkii imtixaanka ku guuleysan waaya inaan naarta geeyno Sheekh Cabdulqaadir Jilaani baa soo orday wuxuu yiri adoonka naarta ma geenaysaan waa inaad jannada geysan haddii kale naarta laftigeedan darbo ku dhufanaya ama laad ku dhufanaya oo burburinaya Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala arintii markuu maqlay wuxuu yiri si uu sheegayo isagu Ilaahay wuxuu yiri intuu naarta laad ku dhufan lahaa oo yacni naga burburin lahaa naarta sheekhan gaalkiisa jannada geeya horta laba qalad oo waaweyn ama saddex qalad oo weyn ku jira videogan qaladka koobaad waa qalad Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala laga galay qaladka labaadna waa qalad laga galay sheekhana Sheekh Cabdulqaadir Jilaani qaladka Ilaahay laga galay wuxuu yahay Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa laga dhigay rabbi adoomihiisa ka cabsanaya sababtoo ay tahay hadalkan uu leeyahay Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala sheekhan gaalkiisa naga geeya jannada yuusan naarta naga darbaynin ama naarta uusan nooga dhufanin laad macnaheedu waxa weeye Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka cabsanayaa in naarta laga burburiyo sida awgeed buu markuu yiri sheekhan gaalkiisa jannada geeya mideeda labaad waxay tahay qaladka iyadana sheekha loo geystay waxay tahay oo uusan wadaadkina ogeyn waxay tahay sheekhu iyo horta sheekha goormuu noqday caasi Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala ku caasiyay oo aan Ilaahay ka amar qaadanaynin oo Ilaahay hadalkiisa diidan oo Ilaahay ku soo hadal celinaya sida sheedaankii oo kale ku soo hadal celinaya oo le aniga ninkan kristaanka waxaan rabaa inaan jannada geeyo oo awood aan leen ku geeyo goormuu sheekhu gaaray ilaa heer uu Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala u awood sheegto waa mid labaad sheekha iyo gaalkan maxaa ka dhaxeeya xiriirka ka dhaxeeya waa maxay sheekhan iyo ninka kristaanka xiriirka ka dhaxeeya oo uu ugu doodayo oo uu naarta uusan u rabin inuu galo oo jannada u geynayo waa maxay suufiyow Ilaahay ka cabsada war wax waa la sheegaa laakiin wax xaqiiqada iyo diinta ku qotoma laga hadlaayo war la iskama hadlo ee Ilaahay Rabbi subhanahu wa ta'ala ka cabsada malaa'iga garbihiina saarane sheekh baa riyooday iyo sheekh baa booday iyo sheekh baa halkan ka dhacay inta leedihiin war nabiga sallallahu alayhi wasallam baa waxaan yiri nadhaha isaga saxiix aan qaadanana insha Allah. Assalamu alaykum.